arrintan cadaawadan iyada ah ee soo jireenka ah aad waxa uga warramaya oo ilaahay uu ku soo bandhigayaa qur-aanka kariimka ah qisooyinka nebiyaduba waxay ka warramayaan waa cadaawadda ay hayaan gaalada iyo ibliiska isxambaarka ah ilaahay baa wuxuu yihi kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun mar kasta oo rasuul yimaado waa la caayay rasuulkaasna waxaa lagu sheegayay sixir leh ama nin waalan waa laba tilmaamood oo la isku caayo oo qofka bani aadamkaa la doonayo mistaaqiyadiisa iyo shaksiyadiisa in lagu baabi'iyo si aan waxba looga rumaysanin mar kale ilaahay fi suurati furqaan wuxuu ku yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiyan wanasiira nebi kastaba waxaan u sameeyey ilaahay loo diyaarhaa cadow dambiilayaasha ka mid ah laakiin ilaahay baa u hiilinaya arrintu intaa way sii dhaafi jirtay oo siduu qur-aanka kariimkaa ilaahay nagu barayo gaaladu intay cayda dhaafaan ayay nebiyada ilaahay gacanta saari jireen siduu ilaahayba kaga warramay qur-aanka kariimkaa nimankii reer banu israa'iil iyo dhaqamadoodii foosha kuma kullamaa jaa'ahum rasuulun bimaa laa tahwaa anfusuhum fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun markastuu rasuulu yimaado wuula yimaado diin aanay jeclayn nebiyada qaybna way laynayeen qaybna way beeninayeen arrintani waxaa si cajiiba u soo bandhigay ama u ogaa cid kastoo khibradu leh waxyiga ka seko waxaynu ogsoonnahay markuu ilaahay soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed casharkii u horreeyey wuxuu siiyey malakul jibriil isagoo yaga cabsanaya markuu yimi xaaskiisii khadiija bintu khuwayl iyaduna cashar dejina ayay siisay oo cabsidii nebiga ay kaga beenayso casharkii saddexaadna waxa siiyey ninkii la odhan jiray waraqatu bnu nawfal in xaaska nebiga khadiija ay xigta ahaayeen ku ahaa sida axaadiidka ku aragteen ninkaasi diintii kirista ku haystay wuu ka dhegaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga markii uu dhegaystay waxa u sheegay ka u yimi inuu yahay naamuus malagii u iman jiray nebiyada waxaan uga socdaa waraysigii kadib wuxuu wararka u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam intagaa ku bilaabi doono laytanii fiiha jadac waktiga aad rasuul noqonayso hadda soo baxday laakiin aad hawl galayso nin dhallinyaraadna qabda xoog leh laytanii akuunu fiiha xaya waktigaa nin nool maa noqdo rasuulku sala allahu calayhi wasalam su-aalku ninkii weydiiya wuxuu yihi awa mukhrijiyahu oo miyee maan jooga buuli markaa ninkaas waktiga qoladaada ay ku berigi doonaan waktiga qoladaada ku berigi doonaan maan jooga nabigu wuxuu yihi awa mukhrijiyahu ku yaabay rasuulku oo miyee ergaya waxaan uga socdaa marka wuxuu yihi lam yaati rajulu bimidli maa ji'ta bihi ilaa cuud qof kasta oo adduunka la yimaada shaygaa aad la timida xaqa ah waa la colaafiyaa marka qodobkeena labaad arrintaasi ama qisadaas waxay ka jawaabtay cadaawadda sababteeda oo ah qof kasta oo diin la yimaado diinta islaamka oo ay ka dhabtoo ka tegi waayaan colaadaas way ku soconaysa aayado badan baana ilaahay ku caddeeyay qad naclamu innahu laa yaxsunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun nebi maxamedow waan ogahay u dhahay inay murugo kugu hayaan iyo dhib hadalkooda iyo dagaalkooda laakiin waxaan kuu sheegayaa gaalada adiga kuma beeninayaan shaksiyadkaada aayadaha ilaahdeed la timid ayay diidayaan marka macnaheedu waxa weeye sababta siraac iyo sababta cadaawad waa diinta aad la timida xaqaa daraaddeed waxay lahaayeen qoladii saalix loo diray kaasoo kale ay lahayd kaga warramay yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada saalixow rajaanu kaa qabin intaanan la imanin diintan balse haddaad diintan la timid dagaal baa inoo dhexeeya waxay isweydiin leh miyaanay
cudurdaar bay leeyihin majaahiliinta maxay diinta u qaadan waayeen iyagoo garanaya inay xaq tahay diintaas ayay iska digeen ilaahay baa caddeeya wuxuu wajahadu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa way garteen inay yaqiin tahay waanay fahmeen laakiin gabdhare iyo kibir daraade ayay xaqaa isaga digeen markay ku soo dhawaado si kale cadaawada noocaan ee u dhaxaysa dadka ilaahay rumaysa subxaana wa tacaala iyo dadka diinta xaqa ah ka soo horjeeda ma dhammaanayso inta adduunku joogo tusaale kooban baan iskeenaya ama basiida si wax loo fahmi karo maalan dadka cudur baa ka dhacay amba adduunkaba waxaynu furnay dhakhtar wanaagsan oo aynu doonayno dadka inaynu ku daweyn dhakhaatiir bilaash ku dawaysana waynu keenay iyo dawo fiican ninkaa wuxuu naga agfuray dhakhtar xun oo dadka joogaan aanay aqoon lahayn dawadiisuna ay tahay usula lagu aqoonay weliba wuxuu ku darsaday dadka u kaydinaya weliba wuxuu ku darsaday kiisa wala u qasbay isagu markaa ma ogola dhakhtarkaa wanaagsana sida fiican wax loogu daweynayo intuu caayi kara u caayaya intuu la dagaalamayo weerar ku qaaday xaggiisa ka joogsan mayso colaadbaa iyo dagaalkaas inaguna sidoo kale eegan kari mayno qofkaa dadka suraynaya ee halaagaya ee weliba ku qasbaya dictoorkaa faansada ah iyo dawadiisaa suntaan eegan karay marka dagaalka xaggiisa ka joogsan maayo oo badeecadiisa wuxuu doonaya dadka inuu ku qasto inaga xaggeeda ka joogsan maayo qaayana dadku ka qabana waa muhiim marka haddii la yidhaahdo waa la heshiiyey oo cadaawadii meesha way ka baxday labadii qolo qolaa laga adkaaday weliba dadka muslimiintaana laga xoog baxay taa waxaynu uga jeednaa dawadidaynu la musnaayo diinta islaamka isaguna suntaasoo xambaarsan yahay gaalnimada intaa marka aan soo dhaafo kusoo gudbi lahaa qadiyad dadka qaarkood ay ku yara kadsoomaan oo ah xorriyadda in xorriyadii jirto oo xorriyad ay u dhaqdhaqaaqayaan xorriyadda noocaasa marka laga hadlayo laba galaan baa lagu miisaa galaanna innagaa laynoogu miisaa galaanna iyagaa loogu miisaa ama ay ku miistaan innagu waxaynu leeyahay muqadasaad iyo waxyaabo lama taabtaan waa diinteenna wanaagsan dadkeenna wanaagsan iyo dalkeenna wanaagsan diinteenna islaamka iyo ilaahay soo dejiye waa lama taabtaan agteenna dadka wanaagsanina waa awliyada ilaahay ee rasuulladu ay horkacayaan dalka wanaagsanina waa goobaha cibaadada intaasi agteenna waa lama taabtaan waana intay sheeganayaan inay xor u yihiin inay wax ka sheegaan iyaguna waxay leeyihiin muqadasaad bay leeyihiin lama taabtaan haddii ay kaa qarinayaanna ama ay kaa qarsoon tahayna inaad ogaato ay tahay muqadasaadka agtooda lama taabtaanka waxa weeye waa diinta xun iyo dadka xun iyo dalka xun diinta xun waa calmaaniyadda alcalmaaniya waa dhegaysanaysaa maalintii dhowey madaxweynaha faransiisku mucallinkii la dilay markii uu la hadlayay ee macallimiintana hadalka u jeedinayay xorriyaddii waanu sii wadi kanaanu yeeli calmaaniyaddana waanu ilaalin doonaa buuli calmaaniya waa dadka in laga kaxeeyo diinta marka diin la-aantaas muqadas bay agtooda ka tahay waxa labaadoo agtooda lama taabtaana goobaha xunxun sida meelaha khamriga lagu cabo iyo meelaha lagu sinaysto iyo meelaha ummadda la isugu keenay khamriga lagu khamaaro meelaha xorriyadda loo yeelo lama taabtaankaa wey dadka xuni agtooda waa lama taabtaan bal iminka markaad adduunyada marayso qoobluudka nimanka la idhaahdo ama luuqiyiinta ee bani aadamka xagga dambe ka mara cidi kama hadli karto
yuhuudda iyo arrimahooda cidi kama hadli karto dadka dhibka badan adduunka iyo kuwa akhlaaqda xun agtooda waa lama taabtaan xorriyad looba laha marka ha ku kadsoomin marka laga hadlayo waxa xorriyadda la yidhaahdo ilaahayna wuxuu uhi qul laa yastawi alkhabiisu waatayib walow acjabaka kasratu alkhabiis arrinta afraadan ka hadli lahaa baraarujin lahaa waxa weeye cayday nabiga caayaya calayhi salaatu wasalaam ama sawirada xunxun ay sawirayaan iyo dacaayadooda miyay wax ku yeeli karaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam maya waxba kuma yeeli karaan nebi maxamed wax ay ku yeeli karaan male nin ilaahay darajeeyey ka dabagala isagaa daanaya ilaahay baa darajo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankana ilaahay baa kaga jawaabay wuxuu uhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filaanay kuwa kugu dheeldheelaya horena ilaahay wuu uga filaaday iminkana wuu kaga filaanaya inna shaani'aka huwa alabtar ka kuu cadhaysani isagaa cidhibtiisu goy doontaa goblami doona dhacdal buu ilaahay dusha uga tuuray ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina kuwa ilaahay iyo rasuulka dhibaya ilaahay baa adduunyada iyo aakhiraba nacdalay cadaab buleeyana wuu u diyaariyey waxaa taariikhda ku xusan dadka muslimiintu markay la dagaalamayaan gaalada wakhtiyadii jihaadku oognaaye u socday waxaa dhacaysay markay qalcad gaar ka qabtaan gaaladu ku jiraan ee ay cidhiidhi galaan ay caayi jireen calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada ay jabi jireen la garan calaamadda lagu garan jiray inay jabayaan gaaladu waa markay nabiga caayaan mar haddii meeshaa iyagoo ku xidhan oo dagaal ku jira ay nabiga caayaan oy qur-aanka caayaan oo ilaahay caayaan markaasaa lagu bushaaraysan jiray oo la odhan jiray haddaa ilaahay inoo jabinaya iminkana waxaynu ku bushaaraysanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaab deg dega siin doono intaa markaan ka imaado kolley cadaawaddaasi ha jirto haddana dadka gaalada ah waxaa jira qaybo la yidhaahdo almunsifiin oo markhaatiga ay nebiga u markhaati furayaan calayhi salaatu wasalaam ka run sheega iyagoo aan raacinba iyagoo nebiga rumaynin oo raacin ayay ka run sheegaan xaqiiqadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam laba tusaalaynu soo qaado mid wuxuu aha wakhtigii nebiga ninkii hiraqle la odhan jiray ee ka madaxda ahaa reer yurub nebigu waraaq buu diray calayhi salaatu wasalaam uu ugu yeedhayo diinta islaamka ninkii wuu hadlo wuxuu yihi war maxamed nin la ydhaaba waraaqii soo diree cid wax ka taqaana ma jirtaa abi sufyaan iyo qolo la socoto safar ahayd ayaa la soo helay waa loo keenay qisada waxaa ku aragteen saxiixa oo waa xadiid la wada yaqaana waxaan uga jeedaa 10 su-aalood buu weydiiyey 10kii markuu dhammeeyey baa wuxuu yidhi sidaa aad sheegtay haddii ay run tahay halkaa aan taaganahay ayuu ka talin doonaa halkaa aan taaganahay buu ka talin doonaa waxaa dhacday qasaawisadii iyo raggii madaxdii diinta iyo ciddii xukunka kula jirtay waa kii u yeedhay halkaasaa idinku dhow buhi horumar iyo hanuune ma idin raaci way diideen markii ay diideenna uu istaad raaciyeoo waa kii yidhi khalaas waxaan tijaabinaynaa diinta ku adag tihiin iyo in kale dee waana idinku darmay wuu qiray xaqii laakinahu matabac muu raacin ninka labaad waa ninka la yidhaahdo casrigan michael hart nin yahuudiya weeye waa nin maraykana waa nin masiixi ah qaybta mustashriqiinta la yidhaahdo weeye ituraafka islaamiga ee diinta wax ka sheega ninkaa isaga ahay 28 sannadood buu buug qorayay marar badanna ee culimada wax ka soo qaadanaya waa maqasheen markii dambe waa kii ladha ku soo bandhigay markii uu qoray kitaabkiisii caanka ahaa ee loo yaqaanay alkhaaliduuna almia 100 nina taariikhdoodu waarayso wuxuu ugu soo horraysiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
markuu nabiga ka bilaabay dhagaystayaashii sidan oo kale u dhagaysanayay way fooriyeen way qayliyeen iyagoo doonaya inuu ka joojiyo halkaa uu ka bilaabay umuu joojinin waxaan uga socdaa dhowr arrimood buu xusay oo uu kaga markhaati kacayo nabiga weynaantiisa cadamadiisa iyo runtiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan ku doortay buuhi ninkaas dadkaa taariikhda galay oo dee qaar xumaan caan ku ahaa iyo qaar khayr caan ku ahaa labadaba way leeyihin waxaan maxamed ugu horraysiiyey buuhi dhowr arrimood 5 arrimood ta u horraysa weeyaana wuxuu ka soo dhex baxay ummad aan xadaarad lahayn wax kaydahoo uu sii haystay ma jirin dadkan kale ee iyaga aan taariikhda soo geliyey dee intooda badan ummadahoodu taariikh iyo kayd bay lahaayeen meeluu qofku ka duulo nin yaroo 25 jira buu ahaa agoona markii uu yaraa adduunna aan haysan 4 qof baa ugu horrayn rumeeyey xaaskiisi iyo saaxiibkiisi iyo 2 dhalinyaro ah haddana 1400 sano kadib waxaa rumaysan buuhi 1 bilyan iyo badh qof milyan iyo 500 oo kun oo qof milyan iyo 1500 oo milyan ayaa hadda rumaysan buuhi maalin walbana way sii kordhayaan maalin walba dadkaasi way siyaadayaan waxay ii muuqata buuhi waan isku qancinayaa dadka intaa leeg inaanu wada khiyaamayn karin waxa labaadan isku qancinayaa been inaanay jirin 1400 sano soconaysa baasha beenta la yidhaahdaa waataynu inagu odhan jirnay lug kaliya ilaado lugtaasunbaa la qabtaa war been ma jirta buuhi 1400 sano shaqaynaysa marka inuu run sheegayo ayaa halkaa ka cad waxaa kaloo uu tilmaamo kasii cajiib badnayd oo ta iminka malaa laynagu tijaabinaya ah isagu dee micyaar buu leeyahay wax wax ku qiyaasayo ah qofkani saamayntu dadkan ku leeyahay saamayntaasi cumqigay leedahay saamayntaasi tajadudkay leedahay kolba see usoo cusboonaanayso wuxuu kaga duwan yahay buuhi dadkaa kaloo dhan 1500 milyan ee rumeeyey waxaa ka mida malaayiin ka mid ah oo haddii magaciisa la taabto u tabaxiyaynayo u dhimanaya marka nebiga la caayo waa midhka laynagu tijaabinayo haddii nebiga la caayo oo magaciisa la soo qaado xumaan lagu sheego malaayiin qof baa naftooda u huraya xageebay nin quroo yuhuudiya ama masiixii ma jiran oo haddii nebigiisa la caayo naftiisa u huraya haddii ilaahiisa la caayona iskaba dah haddii ilaahiisa la caayo ama nebigiisa la caayo naftiisa u hurayaa ma jiro arrintaas waxay tilmaamaysaa saamaynta intaa leeg ee soo cusboonaanaysa ee isdaba taagan inuu nin weyn yahay waa rasuulda isaguma odhanaya ma rumaysna laakiin inuu yahay acdamu alcudamaa kuwa weynka ugu sii weyn inuu yahay baan ku qancay qur-aanka markuu ka hadlayna dee waa kii lahaa kutubtii la keenay oo dhami waa wada muxaraf marka laga reebo qur-aanka maxamed uu keenay isagu sidii lagu soo dejiye weeyaan almuhim markhaati waxay noogu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa markaan ka soo gudubbo qodobka shanaad aan u gudbi lahaa waxa weeye fadhigan oo kale ama kaalintan iminka aynu qaadanayno xukunkeedu waa maxay in nebiga la difaaco diinta halkay kaga jirta ma wax la iska dayn karaa ma wax la iska fududaysan karaa mise waa arrin sharci ah waa waajib sharci waajib ina saaran weeye nabiga la difaaca calayhi salaatu wasalaam daliiladan soo socda daraaddeed ilaahay baa wuxuu uhi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya اثnayn id huma fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macna canaan baa ka dhacday haddaa u hiilin weydaan ilaahay baa u hiiliyey mar uu nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ay ahaayeen isagii abubakar oo abubakar uu nebiga u naxay oo uu nebiguna dejinayey oo uu lahaa laa taxzan ina allaha macana maalintaas cadowgu saa u eryanayayba ilaahay u hiiliyey wuu u joogaa buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka waxaa laynagu guubaabinayaa siduu ilaahay ugu hiiliyey inaynu inagu ugu hiilino arrinta labaad jacaylka nebiga aynu jecel lahay iimaankeennu ka mid yahay waa min aliimaan
sidaynu wada ogsoontihiin xadiidkii cumar bin khataab iyo nusuus kaleba shayga kugu adag lama ilaawo waxaad aaminsan tahayna lagama aamuso waa xikmad hadduu shay kugu adag yahay markaad seexataad ka fikiraysa markaad socotaad ka fikiraysa marnaba maskaxdaada kama baxayo haddaad shay aaminsan tahayna kama aamustid waxaad ka aamusayso maaha ood fudaydsanayso ama aada ihmaalinayso arrinta saddexaad nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay qofka difaaca qofka muslimka ah ee walaalkiiyo sharaftiisa ilaahay baa wejigiisa ka difaaca maalinta qiyaamaha naarta maxaad u malaynaysaa qofka sharafta nebi maxamed difaacaya calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul iyadana dee waad garan karaysa sharafta nebi maxamed qofka difaacaya ilaahay baa ka difaacaya naarta arrinta afraad in nebi maxamed wax laga sheego calayhi salaatu wasalaam la xaqiro lagu soo duulo waxa weeye munkar waa dembi weyn dembigana qofka arka muxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dee darajaad buu lahaa qofba siduu u diidi kara ha u diido dowladaha islaamka iyo madaxdu kaalin bay leeyihin culimadu kaalin bay leeyihin aqoon-yahanku kaalin buu leeyahay saxaafaddu kaalin bay leeyihin dee waa taa ummaddii islaamku isku raacday alaabtooda gaalada aan iska dayno waxaa aada u cajiiboo aan arkaya intii aynu dhegaysanayno waxyaabahan socdaa magaalo soolaana baa isbaadhbaadhayoo waxay waayeen alaab faransiisku uu leeyahay oo ay muqaadaceeyaan markaasaa waxay soo heleen macallin luqadda faransiiska dhiga kiibay muqaadaceeyeen faransiiska kale ay noogu dhow bay idhaaheen adeer waxba ha noo dhigin orod naga tag macallinkiioo duub weyn oo meel iska fadhiya ayaa la soo sawiray waxay sheegaysaa taasi qofba darajada uu ku diidi karo munkarka waxay iyaduna aada u sii cajiib badan oo inaga qancinaysaa arrintan xukunkeeda sharciga markay gaaladii reer maka nebi maxamed caayeen sala allahu calayhi wasalam rasuulku kama aamusin asxaabtiisii gabayaaga habuu u yeedhay waa afkutir waxaa lagu dagaalamayaa waa cod iyo qowl iyo qoraal baa lagu dagaalamayaa